Bismillaah. Ma jiraan hawlo inta aad bilowdo kadibna aad ka caajisto ama aad ka niyad jabtid. Waxaa la yidhi haddaad heli lahayd qof mar kasta ku ag taagan ama ku ag jooga oo mar walba naftaada wanaag iyo wixii anfac leh kugu dhiirigelin lahaa, bani'aadamka dadka ugu roon ayaad noqon lahayd. Haddaba maadaama aanad helayn qof mar kasta intaa kula taagan, maxaa xal ah? Noloshaada maxaynu u noolnay? Maxaynu halkan u joognaa? Maxaynu awoodaheenna u isticmaali la'nay? Waxaynu halkan u joognaa inaynu Ilaahay raali gelino, adduunkana aynu ka shaqaysanno. Haddaba qodobadan soo socda waa qaar naftaada wax ka beddeli doona, naftaadana la xidhiidha. Nolosha caqabado way leedahay, waxaana kaa hor imanaya cadaadis badan iyo culays, kaasoo mararka qaarkood kuu horseedi kara inaad isdhiibto. Laakiin taasu maaha guul. Waa inaad moodhal yeelataa. Waa inay jiraan cid aad ku dayanaysaa oo gaadhay guulo heer caalami ah oo isla markaasi ku salaysan diinteenna. Naftaada heshiisye la gal. Heshiisyada aad naftaada la gelaysaa wuxuu noqon karaa mid yar ama mid weyn. Tusaale ahaan, waxaad tidhaahdaa, haddaan 2 bog oo quraan ah qaybo, casho qaali ah ayaan caawa suuqa ka cunayaa. Taas waa heshiis aad la gashay naftaada. Ma aha nolosha inaad ka baqato ood ka cabsato, gaar ahaan weliba guuldarrada, laakiin waxa weeyaan inaad naftaada geesinimo u muujiso oo aad ka dayso cabsida baaxadda ku hayso naftaada. Naftaada cid aan ahayn ha barbar dhigin. Marka aad naftaada barbar dhigtid qof kale, wuxuu dhaawac u geysan karaa kalsoonidaada iyo dhiiranaantaada, waayo mar kasta waxaa jira qof adiga kaa guulo badan. Waxaa habboon in aad naftaada oo keliya isbarbar dhigtid. Sanadkii hore maxaa isbeddel naftayda ku imi? Xusuusnow guulaha aad gaadhay. Waxaa si fudud loo ilaabi karaa guulaha aad gaadhay, waxaana mar kasta qofka ku soo laabataa guuldarradii kaga timid nolosha. Ha ka baqin guuldarrada. Guuldarradu waa qayb ka mid ah nolosha. Waa cashar ka mid ah casharrada nolosha. Ha kuu noqoto tixraac guulooyinka mustaqbalka. Sii qor hadafka iyo sababaha aad hadafkan u leedahay.